madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo hadal ka jeediyay furitaanka shirka afraad ee xisbiga muxaafidka ah ee Kulmiye ayaa waxa uu ka hadlay isbedelada siyaasadeed ee ka socda gobolka Geeska Afrika waxaanu bulshada reer Soomaaliland u soo jeediyay inay wajahaan isla markaana isku duubni ku wajahaan waxa socda haddan dhaqaale oo adduunka ku tartamayo oo ay tusaale u tahay herdanka ka dhaxeeya labada quwadood ee adduunka dhaqaalahooda ugu tukayeeyay Mareykanka iyo Shiinaha halganka dhaqaale ka dhaxeeya adduunka daafihiisa dhan bay ku hirgelinayaan awoodda dhaqaale waxa socda adduunyada dal kasta oo cudud dhaqaale iyo mid ciidan isbirayda in ay ku tartamayaan oo loolan adag loogu jiro mandiqada ilaahay la dejiyay ee badda cas oo caalamka oo maanta ku hurdanayo dhaqaalaha koraya awgeed ee caalamka laga leeyahay waxaynu arkaynaa isbedelada iyo gadgadoonka waayaha siyaasadda ee dalka ka socda waxaynu arkaynaa Afghanistan iyo Taliban oo heshiisiinayo oo shir rasuul maraya waxaynu arkaynaa xiriirka cusub ee ka dhex socda Israa'iil iyo dowladaha Carabta sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu ka hadlay dagaal diblomaasiyadeed oo uu sheegay in Soomaaliya oo ka faa'iideysanaysa ictiraafka ay caalamka ka haysato ay ku soo qaaday Somaliland inkastoo aan ahayn dhaqaale buuran yeeri mayso iyana ka faa'iideyntahay in wad baahan tahay loo bahalo curo oo dhaqaale loogu soo gabanayo waxyeelada qaranka Somaliland ay Somaliland aqbasho marna aqbali maayo xisbiga Kulmiye inta uu taladay Somaliland waxay aaminsan tahay mabda nabadgooda noloshaha dalalka dariska ah iyo dalalka caalamka si aan hore u sheegay Somaliland waxay si cad ugu sheegaysaa beesha caalamka oo dhan jibcada qolada ka dhaxaysa ururka Afrika ورجولتك إيجاد مدرسة الجرد جامعة عربتا بلد قرية إسلام كا هيك كستأو أهلت الصومالية درينسا وحنسأل شيئنا إن أقواس والسيئين قيد كاملة بلكي بربرين اللي أنتي الصومالية ريبابليك قيد كاملة أقواس والسيئين إن أولغي حب لغلط علمه حصلونية horumarka nabadda iyo qaranka Soomaaliland waxaanu cid walba u sheegaynaa sacad Soomaaliland in la soo tijaabiyo qarannimadeeda oo ay cid wal oo tan maanta xamar joogta ka xoogayay isku dayday ama ciidan badan soo haystay laakiin qaranka Soomaaliland uu yahay birlab aan qarannimadeeda laga taaban karin madaxweynaha Somaliland ayaa markii ugu horeysay waxa uu muujiyay in doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ay xukuumaddiisu qabanayso xataa haddii aanay beesha caalamku taageerin walaalayaal waan hore sheegnay dhibaatooyinka naga haystay muddo dhaaf kale ah saameynta qabyaaladda hase yeeshee xukuumadda waxa ka go'an oo aanan ka labanlabaynayn in doorashooyinka isku sidkan qabsoomaha waqtigii uu qorsheeyay komishanka qaranku oo ah bisha Abriil ee sanadka soo socda ilaahay idamkii wixii rag ku tashayo fadilad tawtaariyo way hirgalaaneen si kasta oo jirta hadday cidinaga caawiyo hadday naga caawisaba waxaynu ku talagalaynaa inagoo qaran oo isku tashanayna oo aan kaalmadeeda ugu habsaanayn lacag baan u weynay waynu geli karnaa adduunkeena waynu haynaaye qaranka waxaan ka codsanayaa inay ila qaataan inaynu doorashada waqtigeedii ku qabanno oo aanay doorashada dib uga dhicin waayo haddaynu isdoorayno muddo walba oo doorashooyinku inaga dhacaan naga daahaa walaalayaal qaranku midoobay maayo khilaafna wuu ka imanaya horena u socon maayo cabdikariim siciid saalax telefishinka Home Cable magaalada Hargeysa maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel haa internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa
ma og tahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'idi karto ma og tahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacagi ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111